أتيت اليوم يا رمضان بالأنوار تسقينا، تعيد نسائم الإيمان، تحيينا الضها فينا. أتيت وروحنا ظمآن طهر منك يحوينا، يذكرنا عزائمنا وصابر فيك يبقينا، يذكرنا. انت ولا لا يروح السير راعين لها fariimo aynu fariinta horeysa waxay bishaynu ka faa'iideysano saaraba aynu ugu soo celcelinay casharadeenana ku qaadanayna habeen iyo maalinba. fariinta labaad waxa weeye markaynu sidaa u wanaajino xiriirka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala, qofka muslimka adduunyada wuxuu ku badbaadi karaa inuu xiriirka Ilaahay wanaajiyo kadibna xiriirka ummadda. xiriirka Ilaahay waxaynu ku wanaajinaynaa inaynu aqbalayno adeecno, xiriirka ummadana waxaynu ku wanaajinaynaa inaynu waxtarkooda badino. dadku ma sinna oo Ilaahay ma simin wuu imtixaanaya, qofna waxba uma waayo. marka wax dhacayaana wuu ka duwi karayay dadka, laakiin waa imtixaan iyo ibtilaa baa la yidhaha. oo dadka wax ku dhaceena waa la eegayaa iimaankooda, dadka kale ag joogayaasha ana waxaa la eegayaa tallaabada ay qaadaan. marka dadka duufaanadu ay ku dhaceen, ehelkoodii uu dhintay ama dhaawacmay, guryihii ka dumeen, isla markaana xoolihiina ka baxeen, waxaa waajib inagu ah in loo gurmado oo wixii qofkaasi uu ku tari karo la iska ururiyo oo loo gudbiyo. waxyaabaha ilaahayna uu inoogu naxariisanaya wey, sidii aynu samaynay abaartiiba wax aada u wanaagsan bahay oo qiimo badan oo ilaahayna inoogu hiiliyey subxaanahu wa tacaala. taa waynu dhiirinaynaa. rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam aada buu uga hadlay, man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama, calaa macna alxadiid. qofka walaalkiisa muslimka ah ka dulqaada kurbada iyo kadeedka iyo dhibaatada haysata, noocay doonaysa ha ahaat, cabsi bay noqon kartaa, gaajo, qaawanaan, jahli, dhinac kasta ha ahaatee dhibka haysta qofka walaalkiisa muslimkaa uga gurmada ka dulqaada, isagana waxa ilaahay uu ka dulqaadaa kurbo iyo kadeed iyo dhib haysta maalinta qiyaamaha. waana maalin aynu aada iyo aada ugu baahan nahay gurmadka ilaahay iyo taageeradiisa subxaanahu wa tacaala. marka waxaynu ku faa'iidayna weeye adduun iyo aakhiraba. taasoo keliyana maaha, had walba inay mid inoo socda noqoto oo dadku ay caado ka dhigtaan. fariinta labaad aynu diri lahayn walaal waxa weeye sidaa dadka muslimiinta wax isugu tarayaan inay dhibkana kala daystaan. haddaan bishii ramadaan aynu ku jirno oo xurmo leh oo waxaa lagu camirayaa uu yahay diin iyo cibaado, inaynu iska dayno dhiigga muslimkee la daadinayo, ama qabaa'ilku ha daadiyaan ama xukuumadaha iyo dowladuhu ha daadiyaan. dhiiggaasoo runtii qolo waliba ka danqanayso. kuwa daadinaya laftigooda dagaalka ku jiraa mid waliba uu leeya waan ka xumahay, waa run wuu garanaya. qofka muslimkee la dilay walaalkii inay dembi tahay wuu garanaya, ramadaanna sii daranta. shucuubta laftigoodii baa ka danqanaya. dadka dhimanayaana waa dad ehela oo jaara oo diin iyo iimaanba ku walaala. marka taana baaqaynu diraynaa waxa weeye, dagaal walba waa laga heshiiyaa oo weligii ma socdo. dagaalka had iyo jeer u dhaxeeya dadka jaarka ana natiijo lagama gaadho, lagumana kala guuraysto, waayo qolana meeshii kama guurayso. wuxuuna ku xumaada uun xiriirkaa ku xumaada, cadaawad baa ku timaada. sidaa daraaddeed maanta ka hadli mayno dhiigga qofka muslimka ah iyo xaaraantinimadiisa, waa wax la wada ogyahay oo dhinac walba haddaad weydiisay isagaaba kuu sheegayaba. waa laysoo doontumuu mid waliba odhanaya, laakiin waa sax, qofka muslimkaa in la dilaa waa xaaraan. qof waliba uu ka odhanaya, taa badin mayno. laakiin markaynu ka hadlaynaa waxa weeye in la isu taago sidii loo soo afjari lahaa, oo maamulada iyo dowladaha hawshaa u taagan dagaalkaa siyaasigaa ay wada xidhiidhaan oo ay gartaan inaan natiijo laga gaadhayn. qolo waliba way danqanaysaa. sidaa daraaddeed laga wada hadlo, sulux la isu taago. dadka kale ee ummadda islaamkana iyo cidda ka madax banaaneen iyaguna isu taagaan inay dhexdhexaadin ka galaan. fattaqu llaha wa aslixuu daata baynikum. ilaahay baa wuxuu leeyahay, ilaahay ka cabsada oo arrimaha dhexdiina dhameeya. maray asxaabtu bedel isgala khilaafeen bay aayaddaas soo degtay, waana caam. ilaahay ka cabsada, alla ka cabsi baa dadka joojin karoo berigu noqon kara, oo dhexdiina hagaajiya buu lahay oo waxay isku khilaafteen dhameeya. ilaahay mar walba wuxuu ku celceliyaa shaygaa sulxa ah iyo dadka quluubtooda in la isu soo celiyo. wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahuma. dadka walaalihiina dagaalamaya dhexdooda ha la wanaajiyo.
waxaad arkaysaa shucuubtu ama dagaalku inaanu weli shacabka gaadhin baad arkaysa dhinacyada kala duwan, waayo maalinta dagaalku socdo ayuunbay baabuurtu istaagaya, xaggaana way ka imanayaan, xaggana way ka imanayaan, baabuurtu way iska bilaabmayaan oo waddadii bay iska marayaan. marka weli dagaalku shacabkii ma gaadhin ee dagaalkii siyaasadiibu ku kooban yahay. marka waxaynu ku waaninaynaa walaalaheenna xukuumadaha iyo dowladaha iyo cid kasta oo qalin iyo qaraar leh inay arrintaas soo afjaraan, ilaahayna ay kaga cabsadaan. wax walbana taariikh baa qoraya oo qormaysa ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedabe, taa waynu ku waaninaynaa. haddii taa la qaadan waayona kollayba waxaa iman doonaa in dee gaaladiina wada xukumi jirta intay soo dhex galaan ay dubbaha inoogu dhuftaan, inay idhahdaan ku joojiya halkaasoo amarkooda qaadataan. marka intaana istaasi dhicin ka horba inaynu inagu ismaqallo aynu dhammaysano ayaa aan ku talin lahaa, iyadoo aynu ogsoonnahay kollayba midaame dhagamala haddii malag dhawaaqayaba le waxbaa ilaahay uu qadarayo mar walba ilaa inta ilaahay ugu talagalay jeer ay dhintaan waxaana joogsan maayaan. laakiin doorkaynu inagu qaadanaynaa waxa weeye inaynaan ku farxin oo aynu ka xunnahay oo aynu ka naxsannahay oo aynu joojintiisa iyo ku baaqidiisa iyo soo afjaridda dagaalkaana aynu runtii u taagannahay. جزاكم الله خيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين والمستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.